nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nabigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a nin nooloo soconaya buu nabigu leeyahy o ahlu jannah ka mid a dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nabigu yihi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya isla ninkii unbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nabigu yihi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya haddana ninkii unbaa soo galay saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu is yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya bal raadcee dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cisho